maxay tahay muhiimadda ay leedahay aamusnaanta? waxaa jira 5 arrimood oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay aamuska iyo in aadan ku hadlin inta markaas muhiimka ah in ka badan. waxaa jirta marar aysan wanaagsanayn in aad aamusto oo ay ku dhalin karto dadka shaki dhankaaga ah. laakiin haddii aad garanayso waqtiga iyo goorta loo baahan yahay aamuska oo aadna aad u badiso, waxaa la hubaa in ay leeyihiin faa'iidooyin badan. faa'iidooyinka haddaan u gudagalno, midda koowaad, waxaad u ekaanaysaa qof awooddiisu aad u sarrayso. waxaa la ogyahay dadka hadalka badan oo mar walba jecel inay dadka ka dhaadhacsiiyaan inay awood leeyihiin, in badanaa dadku ay u arkaan qof aan waxba ahayn xitaa hadduu run sheegayo. waxaa jiray boqor la yiraahdo Louis the 14th oo ka talin jiray dalka Faransiiska 1715. wuxuu ahaa boqorkii loogu cabsida badnaa qarnigii markaas soo maray. waxaa keenay in saas looga cabsado boqorkaas waxay ahayd aamusnaantiisa oo aad u badnayd. waxaa la sheegay in boqorkaasi uusan weligiis sheegin waxa uu damacsan yahay. markii arrin lala soo wadaagana waxa uu ku jawaabi jiray waan arki doonaa. arrinta labaad, waxaad si dhaqso ah u kala baranaysaa dadka dabeecadahooda. maxaa yeelay waxaad tahay qof hadalkiisu yar yahay, dhagaysigiisuna badan yahay. waxaad akhrisanaysaa qofka ku hortaagan waxa uu yahay iyo dabeecadihiisa. waxaad kaloo akhrisanaysaa waxa loo yaqaano body language-ka ama akshinada qofka uu bixinayo. waxaa fududaata in qofka ku hortaagan oo kula sheekaysanaya ay ka tagto kalsoonida, uuna isku dayo inuu buuxiyo aamuskaas dhexdiina ku jira, dabadeedna uu sameeyo hadal badan oo markaas aan loo baahnayn. halkaas oo aad ka ogaanaysid qofkan inuu yahay qof aad aamini karto ama qof aadan aamini karin. arrinta saddexaad oo uu aamusku faa'iidada ku leeyahay waa inuu aamusku leeyahay nasiino badan. nasiinadu sideedaba ma aha hurdada oo keliya, ee haddaad inta meel cidlo ah tagto aad aamusto 30 daqiiqo ama 1 saac maalinkii, waxaa dhakhaatiirtu sheegtaa aamuskaas inuu aad u nasiyo maskaxda iyo unugyo badan oo jirka ka mida, caafimaadna uu u yahay. tan afaraad, aamusku wuxuu badiyaa waxqabadkaaga maalmeed. maxaa yeelay maskaxda ayaa waxay helaysaa waqti ay ku shaqayso ayadoon la mashquulin ama aan la sii jeedin. taas ayaa waxay ku cadaynaysaa dadka soo kaca subaxii inta la hurdo way ka waxqabad badan yihiin dadka kale, ileen ma jirto buuq ka imaanaya agagaarkiisa ama asaga dhankiisaba. tan shanaad, aamuskaagu hadduu badan yahay waxaad noqonaysaa qof naftiisa la saaxiiba oo mar walba naftiisa la sheekaysa. waxaad noqonaysaa qof asagu isyaqaan maxaan ka wadaa? waxaad noqonaysaa qof yaqaan dabeecadihiisa, waxyaabaha uu ku fiican yahay iyo waxyaabaha uu ku liito, waxa uu damacsan yahay nolosha, qorshaha uu rabo hadda kadib inuu degsado. marka saa u jeedaan, aamusku wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan xagga jismiyanka, maskaxiyan, caafimaad iyo horumarba. waxaan ku soo gabagabeynayaa haddaba diinteenna suuban ayaa horay inoogu sheegtay wax walba oo na anfaca. noo sheegtayna haddaadan khayr ku hadlayn iska aamus, taasoo ka turjumaysa danaha noogu jira aamuska dhan aakharo iyo dhanka adduunyaba. haddaad ka cusub tahay channelka, fadlan subscribe saar saad ula socoto waxyaabo badan oo muhiim ah.
aadankane eed maa ka dhammaata afkood ma reebtaan aflagaata ma dhaafaan ibna aadankane eed maa ka dhammaata ibna aadankane eed maa ka dhammaata afkood ma reebtaan aflagaata ma dhaafaan ibna aadankane eed maa ka dhammaata aadankane eed maa ka dhammaata afkood ma reebtaan aflagaata ma dhaafaan ibna aadankane eed maa ka dhammaata ibna aadankane eed maa ka dhammaata afkood ma reebtaan aflagaata ma dhaafaan ibna aadankane eed maa ka dhammaata aadankane eed maa ka dhammaata afkood ma reebtaan aflagaata ma dhaafaan ibna aadankane eed maa ka dhammaata ibna aadankane eed maa ka dhammaata afkood ma reebtaan aflagaata ma dhaafaan ibna aadankane eed maa ka dhammaata aadankane eed maa ka dhammaata afkood ma reebtaan aflagaata ma dhaafaan ibna aadankane eed maa ka dhammaata ibna aadankane eed maa ka dhammaata afkood ma reebtaan aflagaata ma dhaafaan ibna aadankane eed maa ka dhammaata aadankane eed maa ka dhammaata afkood ma reebtaan aflagaata ma dhaafaan ibna aadankane eed maa ka dhammaata ibna aadankane eed maa ka dhammaata afkood ma reebtaan aflagaata ma dhaafaan ibna aadankane eed maa ka dhammaata